madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda sare mas-uuliyiinta golayaasha dowladda isimada marwo ilhaan oo marti noo ah madaxda ururada siyaasadda TPEC dhammaan siyaasiyiinta halka joogta ee ka soo qayb galay xafladan soo dhaweynta ilhaan cumar ee lagu soo dhaweeyay Puntland runtii waxay noo tahay sharaf waxay naga mudan tahay karaamo waxay naga mudan tahay soo dhaweyn gabadhii Soomaaliyeed ee ka mid ah Congress-ka dalka Mareykanka waxay muujisay oo u muujisay dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada iyo gabdhaha khaasatan in ay kartidooda muujin karaan caalamkan ay u soo bandhigi karaan inay yihiin dad wax ku kordhin kara bulshada markaas ay la degan yihiin ama kuway ka dhasheen ha noqdaan ama kuwa ay markaas u hijroodeen oo degeen ha noqotay runtii waa inkastoo dalkan qaran jab ku dhacay burbur dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid bulsho u dhacay haddana dadka Soomaaliyeed waxay muujiyeen adkaysi waxay muujiyeen karti waxay muujiyeen hal adayg ay ku cadeynayaan caalamkan ugu cadeynayaan inay yihiin weli dad nool oo aan dhiman oo qalbigoodu nool yahay waxay 30 sano u adkaysteen iyagoo isku tiirsan oo dibad iyo gudo kala jooga inay nolol karaamo leh ku noolaadaan duruufo kasta soo wajahay waxaan rajo weyn ku qabaa marka la qiimeeyay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee jiilal muddo fara badan ka horreeyay markay tageen wadamada reer galbeedka uga horumaray ee dhinaca muhiimka ah ee siyaasadda iyo dhaqaalahaba waxay muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad ku filan inay dalkooda iyo dalal kale dhisaan su'aashaas mar walba isweydiinta leh haddayba sidaa yihiin maxay dalkooda u dhisi waayeen waa su'aal lagu taagan oo aan u baahannahay gabdho iyo wiilal ilhaan oo kaleeta oo mar labaad dalka Soomaaliyeed dib u yagleela waxaan rajo weyn ku qabaa Puntland inay wadadaas ku socoto dadka hadda wadamada laga soo doortay ay Mareykanka ilaa dhowr iyo 10 ah boqolkiiba 95 dadkaasi waxay ka soo jeedaan Puntland gabadha kamida baarlamaanka Sweden waxay ka soo jeedaa Puntland gabadha baarlamaanka Norway gasho waxay ka soo jeedaa Puntland waxay muujinayaan gabdhuhu in ay ka fursad fiican yihiin kana karti badan yihiin ragga marka runta loo sheego waxaase rajaynayaa awoodooda halka waxay ka qabaan cilqab waxa ay qabaan waxaa muujisay abwaana diyaano oo tiri haddii doorasho loo dareeri lahaa maanta halka ma taagnaydeen waan la qabaa waa runteed caqabadaha dhaqankeenna hortaagan in dadka kartida leh la hormariyo gabdhahana xaqooda la siiyo waa dhaqan aan hadda dhaliilayn laakiin aan u baahannahay inaan ka gudubno casriga la joogo dartiis marxaladihii la soo maray waxay ahayd marxalado waqtigaas ku habboonaa laakiin waxaan qabaa marxaladda maanta la joogo iyo sidoo caalamka isugu furmay inaan u baahannahay aragti ka duwan aragtidii hore oo u horseeda dalkeenna deganaansho iyo barwaaqo iyo inaan caalamka la jaan qaadno ilhaan waxaa tustay markii ugu horreysay way qoftii u horreysay oo siyaasadda meel sare ka gaartay dad badan oo siyaasadda gale waa jira laakiin sida halka laga sheegay qof ka mid noqday Congress-ka Mareykanka oo muslim ah oo weliba immigrant oo mar dhow tagay oo haddana qaaradda Afrika soo jeeday iyada ugu horreysay wixii ka dambeysay waxay roob model u noqotay gabdho iyo wiilal kale oo badan oo tartan galay oo weliba da'doodu aad u yar tahay marka waxaan rajaynayaa midaas ay muujisay mid la mid ay halka ugu timid waxay u diraysaa fariin in wax la noqon karo in wax la qaban karo annagana sharaf gaar ah noo tahay imaanshaheeda ee Soomaaliya timid iyada oo Congress-ka intay noqotay mar ah markii ay state-ka ku soo baxday ugu horreysana Puntland way soo booqatay 2016 hadda oo markii labaad loo doortay inay noqoto xildhibaanad ka tirsan Congress-ka Mareykankana waxay booqasho ku timid Puntland waxaan rajaynaynaa meelo kale oo Soomaaliya inay tagi doonto iyo caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo geeska Afrika ah haddana waxay ka timid Nairobi waxaan u helnay nasiib
inay dadkeeda la kulanto la waraysato xaaladooda aragto waxaa halka ii furan oo keliya inaan idhaahdo Ilhan soo dhawow dalkaaga ku soo dhawow dadkaaga ku soo dhawow dadku jecel ku soo dhawow waxaan kuu rajaynaynaa horumar siyaasadeed oo waxtarta dadka aad la nooshahay waddankaaga Mareykanka iyo mujtamacaadkii aad ka timid ee geeska Afrika oo Soomaali u horeyso runtii waxqabadkeeda waxaa nooga filan in ay fagaaraha caalamiga ah ay uga doodo qadiyadaha Soomaaliya qadiyadaha geeska Afrika iyo dhammaan mujtamacaadka caalamka iyadoo oo codkeeda dhiibanaysa waxay ka tirsan tahay guddiga xiriirka dibadda ee Afrika waxaan rajo weyn ka qabnaa in ay inta ay joogto dalka Soomaaliyeed ay ku soo jeediso caalamka si xaaladda hadda ugu jiro xaalad ka wanaagsan uu galo mar rabo inaan hadal badan ka sheego